federaalka Soomaaliya ayaa waxay sheegtay in maalgashiga ama heshiiska dhinaca maalgashiga ee dekedda magaalada Berbera uu yahay mid sharci darro ah. baarlamaanka Soomaaliya ayaa ansixiyay maanta xeerka ay ugu yeereen xeerka dhowridda gobonimada iyo midnimada Soomaaliya. xeerkan waxa uu sharci darro ku sheegay heshiiskii saddex geesoodka ee u dhaxeeyay DP World jamhuuriyadda iskeed ugu dhawaaqday madax banaanida ee Somaliland iyo Ethiopia. heshiis walba oo la galayo oo masiiri ah oo ama ku saabsan deked ama khayraad ama bad waxa uu igman kaliya dawladda federaalka. waxaan uga digayaa wadamada iyo shirkadaha shisheeye inaysan ku xadgudbi karin qarannimada iyo midnimada Soomaaliyeed. heshiis kasta oo shirkadda Dubai Port World DP World lala galay waa waxba kama jiraan shirkaddan laga mamnuucay dalka. وفي القرن الإفريقي الحكومة الاتحادية الصومالية لا تستطيع تغيير أي شيء بخصوص اتفاقنا الثلاثي الأخير حول ميناء بربرة في أرض الصومال. طبعا ما تقوله وتصرح بالحكومة الاتحادية لا يعنينا، وحكومة أرض الصومال دولة صار لها مستقلة 28 سنة ومستتب فيها الأمر وتمارس الديمقراطية، ومشروعنا هذا حظى بموافقة البرلمان في صوماليلاند، ولا تستطيع أصلا الحكومة الاتحادية أن تغير شيء على أرض الواقع إلا مجرد تصريحات هم